قبل شرفت له دمانتين waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu inta haddaan halkaa kaga gudbo horta ilaahay ba mahadle inagoo bad qabno halkan maanta isbuuken keenay kullayto anu waan ku cusubahay sektorkan energy-ga oo waxaanay new arrivals kii soo gaaray ma garanaysa clubka dawladda laakiin fikirka guud waxa weeyaan de ujeedada kulankan oo soo socday sidaan warka ku helay ugu yaraan 2 years uu soo socdo maraha sanadkii 2 jeer la qabto ujeedada guudna tahay maxaa qabsoomay maxaan inoo qabsoomin iyo halkeen u soconahay ujeedadu guud tahay markaan intaa halkaa kaga gudbo dhammaan daneerayaasha dadka daneynaya korontada iyo energy-ga waddanka oo iyaguna had iyo jeer ka soo qayb gala ma garanaysaa kulankeennan mid uun baan horta anuu xoojinayaa qolyaha korontada kulley wada shaqayn gaar ahina way naga dhaxaysaa war baana isku kaaya laaban hadda wixii ka dambeeya laakiin anuu kolley fikirka guud ee qabo korontadu iyo energy-ga Somaliland wuxuu gaaray meel aan la qiyaasi karin runtii marka laga hadlo waxaad arkaysaa magaalo aqal meel cidla ku yaalo korontadu ka shidanta in quality-ga la saxo in la hagaajiyo in tayada sare loo qaado in qiimaha hoos lagu waxa soo dhan waxay ka mid yihiin ma garanaysaa waxyaalaha shirarkeenani uu qabsoomay laakiin runta marka laga hadlo shirkadda korontooyinka ee waddanka jiri one of the best weeyaan aabsiin soo noqdo doorka commissionka doorka commissionka waxa weeyaan inaan de anagu markay shirkadii sidaa u dhismeen wixii shuruuca inaan ka qayb qaadano weeyaan halkay wax amrinayaan sidii dadka ugu xidhan yihiin inaan markaanta sharciga loo dejiyo la ansixiyo iyadoo la hirgelinayo magarasa siyaasadda guud ee energy-ga in la isku dheelitiro baahiyaha shirkada iyo kuwa dadweynaha in la isku dheelitiro haddaan intaa shirkadda kaga gudbo commissionka iyo waxqabadkiisa oo muhiimadda ugu weyn tahay inaan anagu shuruucda ilaalino oo ka mid tahay magaranaysaa iyaguna inayna waxoodu liban dadkuna helaan koronto macquula oo affordable oo jaban moogta sida dawladda policy-geedaba ku cad